السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال كسو دبادة برنامج كمان دو waxaan ugu hadli doonaa tobanka fure ee guusha 10 keys of success. Waxaan jeclaystay inaan walaalahayga la wadaago tobanka fure ee guusha taas oo haddii aad barataan kugu dhiirigelin doonta wax kugu adkaa oo aad ka cabsan jirtay ama aanad ogeyn inuu yahay wax dib kuu dhigaya. Sidaa daraadeed waxaad isku daydaa bal marka hore hal qodob inaad si fiican uga fahanto haba ahaadee kan adiga kugu daran ee aad la liidato kadibna baro oo ka fogow waxaa la yiri dadaalaha waa u gaaraa. Haddaba marka hore haddaanay kugu jirin inaad dadaasho waxaan hubaa inaadan go'aansan meesha aad rabto inaad gaarto. Haddaba marka hore dooro hadaf iyo ujeedo aad rabto inaad ka miro dhaliso kadibna la isku xir furayaashana isticmaal waxaan hubaa inaad guul gaari karto. Number 2 qaado fursad dhammaan noloshu waa fursad. Number 2 noqo qof xamaasad leh ama shucuur leh haddaad adigu rabto inaad noqoto qof xamaasad leh falgeli xamaasadaada. Number 3 baro sida aad u jeclaan lahayd shaqadaada qabo waxaad jeceshahay jeclo waxaad qabanayso. Number 4 baro khaladaadkaaga horumari guusha wixii ka baaqday. Number 5 ha cabsanin wax qabad la'aantu waa noocyo cabsida iyo shakiga ka mid ah. Number 6 baro kala mudnaanta samee isticmaalka ugu fiican waqtigaaga. Number 7 qabo shaqooyinka adag marka hore shaqooyinka fududay waxay daryeeli doonaan naftaada. Number 8 ku adkaysigu waa tayada ugu joogtada badan hogaaminta guusha. Number 9 waxaad go'aansataa farxadaada taasoo ay xukumi doonto maskaxdaada. Number 10 nambarka ugu dambeeya ee furayaasha guusha xusuusnow shay kasta oo aad qabanayso wuxuu dirayaa fariin go'aanso fariinta aad rabto inaad u dirto adduunka. intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.